marka aan dhaqaalaha ka hadlayno waxaad ogtihiin inaan ahaa wasiirkii maaliyadda ee Puntland ee 5 sano ma jirin aniga mooyee wasiir soo maray oo soo hayay 5 sano maaliyadda Puntland 5 sano waxaad ogtihiin inay ahaayeen 5 sano oo Puntland laga yaqaano dhaqaalaheedu inuu fadhiyay rate-ka dollarku inuu fadhiyay mushaharkeeda in lagu heli jiray waqtigii billaha ahaa taasna waxa keentay aqoonta aanu lahaa maaragtay maaliyad iyo isla xisaabtanka anigu intii aan ahaa wasiirka maaliyadda ee Puntland ka shaqeynayay waxyaalaha aan soo qabtay oo runtii aan oran karo Puntland maanta waxbay u yihiin waxa kamid ah inaan maaliyadda dejiyay oo u sameeyay habkaas inaan soo saxiixay mashaariicda maanta la fuliyo garoonka Garowe iyo jaamacadda Maakhir inaan dhisay xafiisyada dawladda ee wasaaradda maaliyadda ee magaalada Boosaaso in maamulkii anigu aan kamid ahaa especially dhaqaalihii anigu aan hayay lagu dhisay wasaaradda madaxtooyada lagu dhisay in lagu dhisay golaha baarlamaanka in lagu dhisay xafiisyada baarlamaanka inaan dhisay garoonka Boosaaso dhismihiisa terminalka aan dhamaystiray anigu isagoo bilow intaan imi inaan dhisay terminalka Garowe intaas waxay kamid ahaayeen horumarintii wasaaradda maaliyadda dakhligeeda laga sameeyay intii aan joogay waxaan kale oo sameeyay oo kamid ahaa barnaamijka maanta ay Puntland ku faanto oo magaalooyinka wadooyinka loogu sameeyay ee JBLG-ga oo aan steering committee-giisa anigu qayb ka ahaa oo habkii anigu aan u dejiyay waagaas oo hanti dhowrka lahaa oo maaliyadda lahaa oo hay'adaha internationalka lahaa ama hay'adaha caalamiga ah ay noqotay mid mashruuca kaliya ee Puntland wax ku qabsatay ku horumartay magaalooyinka intooda badan laamiga loogu sameeyay iyo mashaariic kale oo badan haddii marka ay noqoto inaan noqdo ninka ku guuleysta waxaan aaminsanahay inaan wax ka badan taas oo horumar ay Puntland gaarayso xagga dhaqaalaha